dad baa weli wax u aqaltaagayaan 20 sano oo kale oo burbura inaan ku sii jirno soo wax laga xumaado ma taa marka waxay u baahan tahay wadajir inaan uga dhiidhino saxaafadda aan laga baqin warka la sheego group iyo reer qasax iyo reer haddii wax ku noqonayno halkaan ma dhibaato taa ilaa gudbo way ujeedadeen wixii nabadda iyo wanaag iyo horumarkeena adduunka waa lagu faariyo maaha inaad ka xumaay meelaha hadda nabadda sida Soomaaliya oo kale oo iyadoo aan isleeyahay waaba hooyadii u baqaa dadka inay badhawaad asxaabta kunta sheegin asxaabta dadkii baraw wala degaan waxa la yiraahdo qof loo dhisay Ingiriis ka jira qowdii samaystay Soomaaliya walaalaha weeyo ku ammaan kaga dayo laakiin baa tafaraar waa goosashadu waa meel goori meel la bajiraan waa ka caayla fadhi calka shanta xidigooda ka hoos fadhi deeyal isfiin لكن أقول حقيقة هذه الجيل والله بالله ودين أرتي سيراي وزير قرص وهاجر واقعوا يبرسوا إلى كلام هاي رتاني شيء هذا الكيان بيش كبر لكن واحد عقبتوه ولا هبدا يروح كيريا شوفي شوف بالله هلا كريه أنا قبصلني ما يا رعد مرك ده كمان راعي كرا هذا كله ولا عدية سوالي ولا شو وروقي ذاكو لكن محوبات إلا موشيا لو بهاي هذا ليش هذا الاسكواش على شيء حولك اسمعيو يلو تريش قال سؤال يقولون انه ليش قال لما قال يقطع وحيفتع وهروق الخيرات قبل ما جرته وقول بين يوت شيك حتى على تسيل قيله واحد وقع حطام بها واحد سوى افن رود السياره والرايله ذاك اسمعي انا قال والسؤال مال مكان دول ملك اللي وديك اركب ولي ما رجع كسبايه هديك انت لو عيل كذا بيا لك ويريد أرتي قف تجي ماشي الساعة والبريد كي بس قدي قلنا يكون بريكني والسؤال ولا الدغلا بوحر أفر تجو قال ليش زي إذا أنا قالوا هالك سؤال غادي يسوق ديبت ولا غادي يروح ما يمشي تاس عروي نعم واحد عليه تاس ما لقينا يجي بي اسمع يا وانا قنارو سومارو دم بيكون في الانترناشونال هالك واحد بيري ومن معاه الله يلو دقه يكون يشم قرون يرد ايدانو شقن جيرانو marka meel xoodana weey Soomaalidu way wada leedahay meesha hadii meesha dibadda ka timaado anigu dagaalka waa soo galay way dawladda hoos timaado waxba kamali laakiin hadii wax kale yimaadaan waan ku jiraa dagaalka waa salaamada lodaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadkiina ka soo qayb galay xafladda tan lagu taageerayo xisbiga cusub Wama National Party waxaan leenahay qabanqabiyaasha xisbigaas iyo dadka soo abaabulayba himiladiina waxaan rajaynaynaa inay idin hirgasho waana loo baahnaa waana idin hambalyeynaa runtii Soomaaliya xisbiyo badan wax ka soo dhisnay oo hab qabiil iyo hayb sumado kala duwan leh iyo shabaadeen iyo wax badan ma oranayno waxaan ka nahay dad aan dambi ku lahayn oo aan ka qayb qaadan waxyaabihii Soomaaliya ka jiray intaana hadda halka fadhiday in kale inaga maqanuba marka waxaan leenahay waa loo baahnaa in la dhiso xisbi waana u hambalyeynaa waxaan rajaynaynaa xisbigaas inuu la jaan qaado system casriga iyo waqtiga ugu jira maanta oo Soomaaliya ay ka guurayso qaabkii burburkii faraha badnaa iyo dagaaladii sokeeyay iyo jabaareyntii in marka waxaan rajaynaynaa marka xisbigaas uu ka turjumo afkaarta ummadda Soomaaliyeed kuwa gudaha jooga iyo kuwa halkaan jooga iyo kuwa meelo kale badan joogaba xisbiga insha Allah kii lagu guuleysto Allah ka dhigo mid kale waxa weeyaan coalition wax la yiraahdo xisbi oo kaliya soconay male waxaan filayaa inaan coalition noqono anaga xisbiga soo wadnaa isku darsan mid kale waxa weeyaan Soomaali waa meel oo kala baxo male Soomaali mid kale soo harto waxa weeyaan dawlad ku meel gaar waa laga baxay hadda waxaa dhalatay dawlad marka arinta dawladnimada yaan filaynaa inay socoto oo hebel meel goostan ay harayso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan ugu faraxsanahay intaana Soomaaliya oo isu timid waxaan salaamayaa dawladda Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya ilays baa maanta noo dhashay dagaal badan iyo burbur badan baa 42 sano nagu dhacay dawladdeena hore soo burburtay dabkan ku daadanna iyo badda
maanta dowladda yari ilayska yaree noo soo baxay waa ku diirsanaynaa tiiviyadii soomaaligan guryaha hor fadhinaa madaxweyne ra-iisul baarlamaan baa naloo dhisay madaxweynaha naloo dhisay ra-iisul wasaara naloo dhisay aad baan u qanacsannahay ilaahay kursiga iyo kurasta iyo madaxnimada allaha noo weyneeyo allaha noo ballaariyo soomaali mid baan leeyahay anigu haweenkii hore oo soomaaliyeed baan ahay maxamed siyaad baraan 20 sano lasoo shaqaynayay dowladda Soomaaliya wax ka soo waday cadaaladna oo la waday qabiil oo la wadin Soomaalnimada midnimo dhulalkii inta iskuuli inta wadankii oo dhan soo dhisnay haweenka Soomaaliyeed way baabiyeen ilmahay nuujiyaan ilmahay dhalaan iyaga barbaariya iyaga koriya iyaga aabeed hadduu dhaawac noqdo qaadata iyaga wiilkeeda hoosteeda lagu dila iyaga qaadata dhibkii ku dhaca haweenka Soomaaliyeed dushooday ku dhacday iyaga biyaha u ilaaliya qaadka iyaga u gada bararka iyaga u haadiya iskoolka iyaga geeya haweenka Soomaaliyeed waxaan leeyahay mid iga geeya madaxweynaha Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed iyo madaxda dalka Soomaaliyeed waa inay haweenka xuquuqda ay leeyihiin ay siiyaan ragga xuquuqda haweenka ay ku leeyihiin hooyada ku leeyihiin waa inay siiyaan kuraasta loogu talagalay waa inayna xaqirin habeen iyo maalin haddaan aan joogno Yurub iyo haddaan baadiya fadhino iyo haddaan magaalo fadhinaba TV-yada hor fadhinaa saasaan madaxdayada u daawanaa maanta waa ku qanacsannahay iyaguna waa inay naga qanciyaan waa in laga baxaa qabiil waa in laga naas nuujis laga baxaa waa in ninkii madaxda dalka loo dhisaa Soomaalinimo diin uu ku wadaa madaxda dalka Soomaaliyeed midnimada waa in loo qaybsadaa ma aha mid iyo laba inay isku fuulaan waa in Soomaaliya dhan madaxda loo qaybiyaa wadaadada waa in loo qaybiyaa wax walba waa in loo qaybiyaa taa waa iga mid Soomaali waxaan leeyahay gacmaha isqabsato burburkii naga dhaafa dagaalkii naga dhaafa oo yakaara qaadato intay fuulsay dadka dhamaynaysa wali lama soo qorin lama Soomaaliya waxaan waa ku faraxsanahay hambali iga dira madaxdii Soomaaliya aad baan ugu faraxsanahay intaan Soomaaliya xisbiga baama waa ku faraxsanahay hadana urka weenka ee Norweedna waa soo dhaweynaynaa idinkana waa soo dhaweynaynaa hambaliyo wanaagsan in Soomaaliya Soomaali baale qofka Soomaaliyeedna in Soomaalidu qabiyo kibir midna qaadan mayso nin laga yeelayo male haddii si ay ma aragtay wax la isugu dayay ama isticmaal ka dameeyo ama Soomaalida kuwa danaystaba ka dameeyaan hadday wax qalada soo dhaceen sidii hadday gudoomiyuhu uu sheegayay waxaanu jecelnahay in iscafis lagu sameeyo laakiin ereyga iscafinta la yiraahdo su'aasha muhiimka ah oo ku jirta waxay tahay wariyaa iscafinaya ilaan hadduu iscafis yimaado waa inuu dambiile iyo dhibana jiro haddii aan marka dhibbanihii iyo maxaan ku yiraahdaayay dambiilihii aanay is aqoonsanayn marka iscafintu ma imaanayso sidaa darteed waxaanu diyaar u nahay in la iscafiyo iscafintaasina waxay dhici doontaa markii kan dambiga galayna uu dambigiisa qirto kii kalena uu yiraahdo hadeer toole argoosi iyo wax la mid ah ku kici maaye walaalo waa ku cafiyay dhulka iyo dadkuna waana deeqa haddii aan iimaanka la iska qaadin waxa markaa wax lala yaabo noqonaysa in dad markii horeba dalka sidaas isriixriixaas ku yimid oo loo arkayo inay tahay dulan foolxun inay ka geysteen waqtiga dheera maanta oo qarnigan 21aad la marayo suurtagal ma noqonayso in maanta tuhun iyo mugdi la geliyo deegaano Soomaaliyeed ayadoo ay Soomaaliya maanta leedahay dawlad rasmi ah oo qarumaha caalamka laga aqoonsan yahay dalkoo dhan laga aqoonsan taas waxay noo muujinaysaa sida loo hagardaameeyay deegaanka iyo dadka Soomaaliyeed iyadoo laga faa'iideysanayo burburkii Soomaaliya soo gaaray ilaa iyo 1990 ilaa wixii ka dambeeyayna ay iska noqdeenba ilaa iyo hadda marka waxba kuma toorna haddii sidaas lagu sii eegto ay ku socoto in beritoolana ma aragtay jawhar ma aragtay wala weyntii aynu caanaha ka soo cabbi jirnay in dhammaantood la yiraahdo ayagana waxa way Spain iyo waxay ka tirsan yihiin Canada iyo wax la mid maanta Soomaaliya waxay leedahay dawlad rasmi ah oo uu madaxweyne ka yahay madaxweynaha si sharci ah loogu soo doortay magaalada Muqdisho mudane Xasan Sheekh Maxamuud isagana waxaanu ugu baaqaynaa in arrintaas dawladdu ay u soo degdegto maamul sameynta Kismaayo
iyadoo markaas si xaqaaniya u eegaysa dadka deegaanka baahidoodana tixgelinaysa. ilaahay wuxuu abuuray cadli wax liga ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri al-adlu bayna an-nas cadligu wuxuu ka dhaxeeyaa dadka bayna muslimiin wa bayna an-nas waamo aqoon baan u leeyahay waan akhristay taariikhdiisa waan ku noolaa waan ka shaqeeyay laakiin waamo waxaan rabaa inaan uga dambeeyo ninka waamo ku dhashay ayaan rabaa inaan qurxi baan ku dhashay qabidaar baan ku dhashay waxaan rabaa inaan aayaha qabidaar ka taliyo ma aha anigu inaan waamo iyo marka ka taliyo ragga le baan uga dambeynaa waxaan uga dambaynayaa boqortooyinkii waamo iyo waaqdhoobi allahu akbar kuwaasaan uga dambeynaa marka wiil aniga ila mid ah oo ka soo orday muxuu ahaa meeshii aan garanayo qabidaar ka soo orday inuu yiraahdo waamaan maamul u sameynaya anu waxaan arkaa wax leeyahay kaafiye kareeyay arrin kale fog ta iga hadlinaysa caawataawe iga hadlinaysa taa weeye waxaan ahay oday Soomaaliyeed oo nabadda iyo walaalnimada jecel kama seexdo waxaad igu taqaanaan wadankaas aad igu ogtiin inaanu aniga iyo Cabdiraxmaan Sanyare iyo Siyaad iyo ragna lamida iyo Axmed Cali Wacays inaanu u socono 24 saac siday Soomaalida Norway u midoobi lahayd ma u malaynaysaa marka inaan Soomaali kala balaayo uga shaqeynayo waa ma uga shaqeynayo meel kasta oo joogo Soomaali waxa ka shaqeeya midnimadeeda waa boqortooy waaqdhoobayna boqortooyada up to date way jirta labadii boqortooye midna jaamay fadhida midna badhaadhiya afmadooy fadhida gardarrada waa laga wanaagsan wadankan annaga ayaa martina loogu yahay marka suldaanku saamtan inuu wax difaaco wey beesha beesha aan ka dhashay asal ay wax dulmayso waa inaan qabto waa xadiis saxiixa waka wansur aquuka daaliman oo madluuman laakiin haddii la dulmayo ma ogolin ظلمي بقى ماشي يعني ظلمي بقى ماشي يا لا ما أقول ظلمي قاس وحب اللوضي كون سجال بقول سجال يا طبنكي ما كي اسمه يلي بيشري الوريجو وكسر قال كي وهري وكسر دقي هالكا قابلين بقول تويدي وغلبي يتي وامو ويري بس توردي أم بيما قبل إلا شيء عيب ما عيب إلا شيء حقيقة من المطلقة بس محلها فلاني محلوها بايسا مال waxaanu ogolnahay ilmaada xiyaalo wala nims waxaanu ku abtirsanaynaa beelaha waxaanu tirsanaynaa ilaa iyo 1919 markii nala jabiyay ee Talyaani aanu la dirirnay ayna jabiyeen Soomaalidii iyo Talyaanigiiba waxay lagu qabteen gumaysi wada socda isku si haba sii kala darnaa oo deegaanka waaba ha ku dhaco gumaysi khaas halidin sheegay maamuladii Soomaaliya dhisay 60kii inay raaceen khadkii gumaysiga aysan waxba u qaban bulshadii aysan xaqeedii sii dhowrin oo sidii gumaysigu u ku taliyay loo garaa waxaan aqaanay Cabdiqaadir Axmed Aadan caaqiliintii muxuu jamaama wiil kamid oo dhaga baa ii sheekay mid dhagala ayaa xamar ku arko saare oo nin weyna ninka dhagaha la muxuu saaxiibka ninkan ma taqaana ninkan awowgiisa Talyaaniga liin jiray waa la ogaaday feeb sidii loogu waday halka ka soo socday hada afka ugu wada bisaan ku farmaan kii feebka soo qaatay maamo feeb ya hada waxa la joogaa 2013 ba hada qariib ah soo bilaaban feeb waxaan rabnaa in la wado Google nabadeed baan u dhigay annaga xaqule وجشنا وإني دولة خرج كذا أي نرى بحسه نبديه ذي أنا قاعدين وامو يوقفوا بيدنا الله أكبر إتكلم وحقوله واللغة بين يا مجد دولة الصومالية ده أرجو وحنكو السلام يا مدحوينها مدن حسن الشيخ محمود دوميها برلمان رئيس الوزراء ساعد دوميها برلمان كا يكحجين زيسا والولي بعد صاحبنا هاي مهد عبد الله عوي waxaan doonayaa inaan ka hadlo deegaamada wacdi ku dheeraaday afmadow iyo badhaadhe iyo markaan ka hadlayaa afmadow laakiin afmadow magaceeda madow taariikhdan afmadow waa gabadh dahab afmadow baa dhiga rag baa dhalay
in la weydiisto weeye ma aha in meelo kale waxaan ku soo koobayaa khudbadayda oon leeyahay cashadii baynu gaadhnay annagu haddaan beesha dirnahay maanta nin baa hadlayay awood qaybsiga iyo dhulalka waa ku dulmana somaliland waxay la shakisan tahay ee soomaaliya ugu soo dhexdhici laada gudub bay tirsanaysaa qaran bay ahay soomaaliya bay u timi jacayl iyo walaalnimay u timi sidaa axmed uu sheegayo sidaa axmed sheegayo sidaa cabdiraxmaan uu mar walba ugu hadlo waa nin geesiya godab baa ku soo gaadhay somaliland waxaanu leenahay xusbiga waama annagoo aan raalli ahaada walaalayaal walaalnimadii horena waa ku mahadsantihiin tan dambena waa ku mahadsantihiin noona imaada deegaanka waamo iyo barwaaqa sooranka waa udhoobay maamul goboleedyo jira ilaah baan idinku dhaarshay dhaqaalo iyo dad ma ku gaadhaan shalaanbood beenta yidaasushay aynu xaqiiqo ka hadlo dad wax sheeganaya dad iyo shalaanbood ma gaadhaan dhaqaalo canshuurta shalaanbood keenta ma keeni karaa waana tuulo markaa maxaynu ku qaybsanaynaa maamul goboleed ma tiro ma tayo ma tuulo haddii tuulo lagu qaybsanayo 1250 tuulo baanu waaqdhoobay iyo waama ku leenay waa ogolnahay haddana walaalnimo cadweyn baan ogolnahay soomaali oo dhan baan wuxuu ogolnahay dulmiga hala fiiriyo hala leebo waxaan u leexanayaa xukuumadda maanta waxaan maqlayay walaalahayga dil waqooyi suldaan cabdiruus wuxuu ka cabanayay in xukunka saddex qolo ay muxuu ahaa isla haysiinayso oo intay guddoomiyihii baarlamaanka iyo bareen ministerka iyo madaxweynaha la qaato haddana afarta muxuu ahaa wasiir ee loo yaqaana eega haddana nala qaybsanayo oo haddana la keenayo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii koobaad markii la magacaabo laleeyahay haddana laba kalaa laga daba magacaabaya waxaasoo dhani ma suuroobayaan madaxweynaha waxaan uga digayaa inuu dowlad rasmi ah weeye wixii hore kumeel gaadh buu ahaa inaanu qadnana waxaa keentay xilkasnimada dadka oo dhan baanu waxaanu adeer u nahay waxaanu aabba u nahay waxaanu abti u nahay shirkii ugu horreeyey ee dowladda lagu dhisay cabdiqaasim lagu soo doortayna beesha dir baa dhigto ismaaciil cumar gelle waa nin dira taasaan ku qadnay gogasheenu ismaaciil cumar gelle intuu ku ooyey anoo taagan wuxuu yidhi maanta gogashaa deedihiina qara tibaana lagu wadaa madaxweyne yeeli mayna maanta yeeli mayna wasiirada eegaa banaanka ka mara waxaan kusoo anigu inta nin dhagax buur ka soo orday iyo qorraxay hadlayaana waa hadlaya